العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. صدق الله العظيم. إلهي سبحانه وتعالى geerida waxa uu ka dhigay shay xaq ah oo dhab ah. waxaan ka fahmi karnaa mawduuca cajiibka badan ee aan rabna inaan caawa ka hadalna, kaasoo ku saabsan geerida nebiga sala allahu calayhi wasalam. rasuulka salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi waa dhintay. ilaahayna wuxuu yidhi: wamaa muxammadun ilaa rasuul. nebi muxammed ma aha ilaa rasuul maahane. rasuul alla sharaf u yeelay oo qiimo leh oo bani aadamka ka sharaf badan, qiimo iyo cizi alla u yeelay waayo subxaanah wa tacaala. wamaa muxammadun ilaa rasuulun qad khalat min qablihi rusul. asaga hortiisa rusul ayaa tagtee afa in maata aw qutil. haddii uu dhinto nebi muxammed ama la dilo cirdihiina maad ku noqonaysaan? diinta maad ka tegaysiin? jihaadka maad ka seexanaysaan? afa in maata aw qutila inqalabtum calaa acqaabikum. meelihii aad ka timideen iyo xumaantiina maad u noqonaysaan buu dhahay ila subxaanah wa tacaala. waman yanqalib calaa caqibayhi falan yaduru allaha shay-a. qof walba oo xumaan ku laabta markuu nebigu dhinta ka gadaal, oo diinta hagaajin waaya, sunnada nebiga noolayn waaya, xaqa difaaci waaya, wuxuu alla ka dhimayaa ma jiro subxaanah wa tacaala. inta shukrisana ilaahay waa jaasina subxaanah wa tacaala. markay diinta islaamku taam noqotay, axkaamtii shareecada lagu dhammaystiray dusha nebiga, oo maanta wixii ka dambeeya wax xukun ah oo loo baahan yahay aysan jirin ilaa la soo dejiyey, ayuu rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu aaday xajatulwadaaca. mar allaala markuu xajiyey ayuu yidhi: innii laa adrii lacallii laa alqaakum bacda caamii haada. aniga ma ogi sanadkan wixii ka dambeeya waxaa laga yaabaa inaanan is arkin, inaan idinla kulmi waayo. mawqifkan inaanan mar kale aan isku arkin, inaanan ku kulmin ayaa dhici karta buu dhahay sala allahu calayhi wasalam. ee khuduu cannii manaasikakum. acmaasha xajka iga qaata, war diinta iiga daysada. maanta wixii ka dambeeya ama sanadkan ka gadaal inaanan gadaal isku arkin ayaa dhici karta buu dhahay nebiga sala allahu calayhi wasalam. rasuulka mar allaala markii wakhtiyaalkaa la gaaray wuxuu aad iyo aad u laalaabay ama laba jibaaray cibaadaadka. wuxuu ictikaafi jiray ayaa la yidhi ramadaankii 10 dambe, laakiin sanadkaa wuxuu ictikaafay 20 maalmood salawaatullaahi wasalaamuhu calayh. jibriil ayaa u imaanayey, hal mar ayay qur'aanka dhammayn jireen, laakiin sanadaa 2 mar ayay dhammeeyeen asaga iyo jibriil. intaa waxaan ka fahmi karnaa dadka mar allaala marka ay gebagabada cimriga gaaraan inay diinta alle ku dadaalaan oo ay laalaabaan oo ay xoojiyaan. haddaba rasuulku wuu soo baxay ayaa la yidhi habeenada ka mid ah, weliba bilowgii bishii safar sanadii 11aad ee hijrada. rasuulku waxa uu soo aaday qubuuraha ama meelaha ay ku duugan yihiin shuhadadii uxud. aad iyo aad ayuu rasuulku u sagootiyey uguna duceeyey. rasuulku maalintaasi cajiib badan ayuu ugu duceeyey dadkii uxud markaa ku duugnaa. habeennimo ayuu soo baxay ayadoo muntasifu leyl ah ama habeenka dhexdhexaadkiisa. waxa uu soo aaday qubuuraha baqiic. istikfaar ayuu u weydiiyey. wuxuu yidhi: assalaamu calaykum yaa ahla almaqaabir. rasuulku aad ayuu ugu duceeyey maalintaa dadkii ahlu qubuurta ahaa. rasuulku waxaa ku bilowday xanuunka maalintii 29aad ee bisha safar sanadkii 11aad maalin itnayn ayadoo ay tahay ayuu rasuulku ka qayb galay janaaso lagu duugayay baqiic.
mar allaala markuu ka soo noqday uu dariiqa soo maraayey ayaa rasuulku waxaa qabtay madax xanuun. rasuulku markuu madaxa xanuunay wuxuu soo aaday gurigiisa, wuxuu ugu yimid caaisha oo madaxa xanuunaya ayadana. caaisha waxay tiri waa ra'saa, madax xanuunkaygiiyaw. rasuulku wuxuu yidhi bal ana waa ra'saa, anaa kaa daran caaishay madax xanuunka. aad ayuu rasuulku maalintaa madaxa u xanuunay. dadka ayuu dujinayay salawaatullaahi wasalaamuhu calayh asagoo jiran 21 maalmood. marka laysku daro ayaamihiisa xanuunka dhammaantood waxay ka koobnaayeen 13 ama 14 maalmood. usbuucii ugu dambeeyey ee akhiirkiisii ahaa rasuulku waxaa ku cuslaatay jirada. wuxuu gudagalay inuu su'aalayo aswaajtiisa iyo xaasaskiisa ee uu leeyahay ayna ana haddan, ani beri xaggee ahaana. mar allaala marka habeenay ama naagtiisa naagaha ka mid ah uu habeenkaa la seexdo rasuulku wuxuu dhahayay ayna ana haddan, ani beri xaggee ahaana. wuxuu dhararsanayay tookadii caaisha. rasuulku wuxuu rabay guriga caaisha inuu isaga xanuunsado. habeenba habeenka ka dambeeya wuxuu dhahayay ayna ana haddan, ayna ana haddan, ani beri xaggee ahaana. mar allaala markuu sidaa yidhi xaasaskii way fahmeen. maalintii tookadii caaisha la gaaray gurigii caaisha ayaa nebiga la keenay. wuxuu isugu wacay naagihiisa oo dhan, wuxuuna ka codsaday inay ku soo booqdaan guriga caaisha oo ay ka dhaafaan tookada iyo wareega bacdamuu xanuunsan yahay. dhammaantoodna waa ka ogolaadeen. rasuulka sala allahu calayhi wasalam fadl ibni cabbaas iyo cali bni abi aalib ayaa soo garbeeyey oo guriga caaisha keenay caasiba ra'sa, asagoo madaxiisa ay mara ku xihan tahay salawaatullaahi wasalaamuhu calayh. lugihiisa ay dhulka gaarayaan oo ay jiidmayaan ayaa waxaa la soo geliyey gurigii caaisha. meesha ayuuna ku dhammaystay rasuulka usbuuca aakhirkiisa oo xayaata bixiisa markaa ka dhinnayd. caaisha radiallahu tacaala canhaa waxay tiri waxaan aqrinayay mucawadataynka iyo ducooyin nebiga aan ka xifdiyey rasuulka sala allahu calayhi wasalam. weliba intaan gacantiisa soo qabtaan ku aqrinayey, markaasaan u marinayay jasadkiisa ayadoo ka rajaynaysa barakada gacantiisa salawaatullaahi wasalaamuhu calayh. rasuulku aad iyo aad ayuu u xanuunsaday. rasuulka salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi dhimashadiisu waa xaalad aad iyo aad u cajaa'ib leh oo dadka ku abuuri karta murugyo iyo tiiraayo. markuu dhintay ka gadaal cumar ibni khitaab radiallahu tacaala canhu ayaa abuubakar waxay ku tashadeen inay u tagaan islaanta la yidhaahda ummu ayman. waxay dhaheenna keena ummu ayman aan soo siyaarano sida uu nebigu u soo booqan jiray markii uu noolaa oo kale. waa israaceen mar allaala markay u dhowaadeen oo meesha ay tageen ummu ayman waa ooysay. ummu ayman mar allaala markay ooysay abuubakar wuxuu ku yidhi maxaad u ooynaysaa? ilaahay agtiisa waxa yaala ayaa u khayr badan rasuulka sala allahu calayhi wasalam. haka murgoonin ummu aymaney, hana ooynin. ummu ayman waxay tiri waa ogahay shayga alla agtiisa yaala inuu u khayr badan yahay nebiga. aniga xaaladaa la oyn maayo, laakiin waxaan la oynaa waxyigii iyo barakadii iyo khayrkii soo degi jiray ayaa go'ay. cirka ayuu ka dhammaaday. nebiga intuu noolaa baraka iyo waxyi ayaa soo degi jiray, qur'aan ayaa soo degi jiray, waxyaabo fara badan ayaa xagga alla ka imaan jiray subxaanahu wa tacaala. laakiin kii ayaa go'ay. hadalkaa markay tiri abuubakar iyo cumar waa iscelin waayeen, ayagana waa ooyeen. marka meesha waxaa laga qaadanaa inay tiiraayo iyo murug weyn ay tahay dhimashada nebiga sala allahu calayhi wasalam. qof walba oo muslim ah musiibo dhibaato badan ayay u tahay. anas ibni maalik wuxuu yidhi ma jira maalin nooga iftiin iyo farxad iyo nuur iyo wanaag badnayd maalintii nebiga madiina uu soo galay. ma jirin maalin nooga murug iyo dhibaato iyo mugdi badnayd maalintuu dhintay salawaatullaahi wasalaamuhu calayh. sidaa darteed rasuulka usbuuca waxa uu ku xanuunsaday gurigii caaisha. meesha ayay ku soo booqan jireen dumarkiisa. maalin arbaca ayadoo ay tahay oo ay 5 maalmood ka dhiman tahay wafaadkiisii geeridiisa, rasuulka sala allahu calayhi wasalam xanuunkaa haddana ku xoogaystay oo markaa ku adkaaday.
وأمير دبول مي صلوات الله وسلامه عليه مركاسو يري شبا تضبا ودامود وعيك بيه ساعة إيغو شبا أيو يري وحان مضنهي أولا يابا إنان أمد أبحو وحان ربا إنان بنانك آذو أن أمد لكلمو وأن لصو دردار أيو داعي صلى الله عليه وسلم تضبا ذي ودانو أو حقهوذا أن لطورين أيا لقوذا قلي إلا وشبو واكو شبين إلا رسولك قعنتي سأو صوت المامي أو يري حسبكم إيغا جوجيا مركبيها وحي قوذا قلين إلي كشبان إلا أو يري حسبكم إيغا جوجيا أيو يري نبي صلى الله عليه وسلم انتا كقضاء رسولك وأصوب حي أصحابك وأيمد أيا ليري مركي أو دريمي وحوغا خفيف أيو مساجدك صوغري رسولك مساجدك أيو أصوغري أمدا وحو ربا إن أولا دردارمو ندعيس وحاكو حرنا عصابه أما على صلوات الله وسلامه عليه انتا كقضاء وحو كفتيستي من بركة كركيسة ومضى أيو قدبيي ونقد بأخريي ضدكنا وحي كسو أرورين جارر كيسة للعياشيسي إسقو يماذين مركاسا رسولك وحو يري لعنة الله إلهينا على ديسها أهاتو على اليهود والنصارى يهود إيا النصارى يهود يا النصارى نعلد إلهي كركوضا أهاتو اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا أنبياء شود قبور تودا أي مساجد كدكتين قبوره أي مساجد كدكتين أي يري صلى الله عليه وسلم إلهي هلا عن ذا يهود يا النصارى يا وحلا الله وحي سميين إدي سميسا وأجيدا نبي جيري سشمال الموت أيا كدما ولبا وحول مركي دنبأها أو مركو قريقا كل غضي مر أيو وجيغا سارتي مر الله لمركو كو عبر موافيداي كقلال حدنا واساراي أساقو حالديسو أي سراتهي أيو يري نعلد الله يهود يا النصارى كركوضها أهاتو قبورها أي مساجد كدقان ورقبورها كدكنين قبورها مساجدها كدقانين قبورها ميلا اعتكاف والله فديستها كدقانين رسولك أمد أيو قدقا صلوات الله وسلامه عليه بعدما أوتي من رب إنه أمد فاروقه انتا كقضى رسولك واسودقي صلاة دورك أيو دتك دجيي وكن نقضي حضنا أمدي أيو وعدي واسودقي عسركي أيو حدنا دكذي رسولك وكن نقضي أمدي أيو وعدي آد أيو معلنتا أولا الدردارمي إلي حقك الدلالات إلي أن أسقاك بحي الربا أو ناشك تجي الربا إلي إسماء مران دينك الله أي حوجيان قداشيس أي سقارة إيا دبات إيا دين كالنقش أين كدعين أيو مر والبمركو من بركة كرة رسولك أوكو وعدينايي شنط الصلاة انتو أسودك أيو عدنا من بركة كنا قنايي صلى الله عليه وسلم نمان كي دين تسود ويي اي مقالة مدينة كسود ويي مركي رير مكا اي نعين ومقالة ذا اي كبريات او اي دمحين اني ديلات وغونا تشتين دا بارلبان كي دار الندوة ايا وحاد عضي انو آد ايا آد ومدى اغاحط لي رسولك رير انصاريت آد ايو اغاحط لي دادكو وابضان دونان ايو رير انصاريتنا ويران دونان دادكو وحييهين داد متقانا بضانايا ايقا وحي نقونايا raashinka meesha milxa uu uga jira ama cusbada oo kale dadkan dadkii xigtadayda ahaa waaye ayuu yiri nabiga markii la inacay ayay ijlaadeen waqti diin laygu nacay isoo dhaweeyeen waqti lay soo raacdeeyay ayay meel aandega iyo ma'wid isiiyeen waqti xoolahooda ay ii diideen dadka ayay kooda igu xiriiriyeen war qof walba oo madax u noqda umadayda reer ansaareed xumaan hadday sameeyaan ha ka cafiyo hadday wanaag sameeyaan ha ka abaalmariyo aad iyo aad ayuu maalinta ummadda kala dardaarmay raggaa inaan dad qiimo badan oo sharaf leh ayay ahaayeen waa dadkii ilaahay kitaabka ku amaanay waaladiina tabawwa'u addaara waaliimaana min qablihim yuxibbuuna man haajara ilayhim walaa yajiduuna fii suduurihim xaajatan mima uutuu wayu'tiruuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasa waman yuuqa shuxa nafsihi faulaa'ika hum المفلحون ونمنك إلى ساكو أماني سبحانه وتعالى وحي جعليهن دد أسو هجروذا أو دين وضا أو رب عابدايا أو حقك صعدا قلبي قوذك هلميسد حاسب نمو إيا حمان إيا حقدي إيا وحيار حمان
waxay jecel yihiin inay ummadda wax u dooraan, naftooda ay ka qaadaan, walaalahood islaamka ay siiyaan. haddaba nimanka noocaasa wanaajiya. aad iyo aad ayuu maalinta ula dardaarmay nebiga dadka. waa kala dardaarmay in la ixtiraamo oo la wanaajiyo oo la qiimeeyo sida ay diinta u soo dhoweeyeen oo kale. maalin khamiis ay tahay oo geeridiisa 4 maalmood ay ka dhiman tahay ayaa haddana xanuunka ku ziyaaday rasuulka sala allahu calayhi wasalam. xanuunkii ayaa ku batay, markaasuu yidhi halumuu, war ii keena oo iila imaada warqad aan idin qoro. warqadaasoo haddaan idin qoro aadan dhumaynin, wax dhumitaana arki maysaan, waa idinla dardaarmaya ayuu yidhi rasuulkee warqadaa ii keena. cumar ibn khitaab ayaa ka mid ahaa dadkii meesha joogay. wuxuu yidhi rasuulka xanuunkaa ka tan badan, war mashaakil iyo kurba ayaa haysata, sakaraadkii iyo dhibaatadaa rasuulka haystee ka dhaafa, warqad ha u keenine, kitaabka allah idin dhex yaala, asagaa idinku filan, war ku dhaqma oo asaga raaca oo barta ee warqadda ka dhaafa nebiga. cumar sidaasuu yidhi. intaa ka gadaal ayaa dadkii iskhilaafay. qaar waxay raaceen ra'yigii cumar oo waxay dheheen rasuulka ka dhaafa, ha dhibina, war dhibkan ka badan ha gaarsiinina, asagaa kurba iyo dhib haysata nebiga. qole waxay dheheen warqadda u keena, hana loo qoree, rasuulku hadduu leeyahay warqadaan idin qoraa, yaan la buuqin ee ha la keeno. sidaasay isku khilaafeen. codkii ayaa kor noqday. intaa ka gadaal rasuulku wuxuu yidhi iga dhaqaaqa, iga baxa ayuu yidhi, agtayda ma ku wanaagsana in lagu buuqo. sidaas ayaa warqadii ay ku dhammaatay musiibo dhammaanteed ayuu yidhi ibnu cabbaas. waa wixii kala geeyey rasuulka iyo warqaduu noo qori lahaa salawaatullaahi wasalaamuhu calayh. laakiin nebiga maalintaa ma qorin, bacdamaa meesha buuq iyo waxyaabo kale uu ka dhacay. rasuulku maalintaa 3 waxyaabood ayuu dadku kula dardaarmay. midda koowaad rasuulku wuxuu kula dardaarmay in yuhuud iyo nasaara iyo mushrikiin laga bixiyo jasiirat alcarab, jasiirada carabta in laga bixiyo yuhuuda iyo nasaara iyo dadka mushrikiinta ah. qiime ay leeyihiin male gaalada. war muslimiinay idinkaa cizi leh oo sharaf leh, haddaan idinka dhinta xataa ha daciifina, gaalada ha isku dulaynina, hoos ha isku dhigina, ka bixiya jasiirada yuhuuda iyo nasaara iyo mushrikiinta oo dhan ayuu dhahay sala allahu calayhi wasalam. war waa idinkaga digaa, nimankaa waa niman khiyaano badan, waa niman dhagar badan oo islaamka aan jeclayn, waa niman raba inay islaamka dumiyaan, umana suura geli karto. adduunka waxay u necab yihiin qof islaam sheegta iyo islaamnimo. waxay ummadda u necab yihiin qofkii ilaahay diintiisa raaca subxaanahu wa tacaala. maca daalika axsaan ha u samaynina, wanaag ha u falina. aniga waa idinka tegi rabaa, aniga waa idinka dhiman rabaa ee raggaa la dagaalama, raggaa iska celiya, war jasiiratulcarab ka bixiya ayuu yidhi nebiga sala allahu calayhi wasalam. wuxuu ka dardaarmay oo kale wufuuda iyo wafdiyaasha inaan wax dhibaataa la gaarsiinin oo loo ogolaado ama loo fasaxo sidii markii hore ay u fasaxnaayeen oo kale. ninkii raawiga ee ka sheekaynayay wuxuu yidhi midii 3aad waan hilmaamay, laakiin waxaan u malaynayaa inay tahay ixtisaam in lagu sameeyo oo la qabsada kitaabka iyo xariga ilaah subxaanahu wa tacaala. ama waxaa laga yaabaa ayuu yidhi inay tahay in la fuliyo ciidankii usaam ibnu zayd, ama waxaa laga yaabaa inay tahay markuu dhahayay assalaat wamaa malakat aymaanukum, war salaada ku dadaala iyo waxyaabaha midigyaalkiinu ay hanatay. rasuulku sidaa ayuu maalintaa dadka ku wacdiyey oo uu kula dardaarmay salawaatullaahi wasalaamuhu calayh. ummadii waa dujiyey rasuulka oo salaadihii ayuu maalintaa dadka ka bixiyey ilaa salaada maqribka ayuu dujiyey. maalintaa salaada maqribka walmursalaati curfan ayuu ummadda ugu aqriyey salawaatullaahi wasalaamuhu calayh. cishaa agtiisa markii la gaaray xanuunkaa ku ziyaaday salawaatullaahi wasalaamuhu calayh. wuxuu awoodi waayey inuu masaajidka u soo baxo, wuxuu awoodi waayey inuu masaajidka soo aado. xanuunkii waa ku ziyaaday, ilaan waxa meesha yaalaa waqtigii ajasha, geeridiisii ayaa soo dhow. aad ayuu u dadaalayay maalmahaan, masaajidadana waa xaadiraayey ilaa salaadii maqribka ummadda uu dujiyey. salaadii cisho markii la gaaray waa awoodi waayey inuu u soo baxo. rasuulku aad iyo aad ayuu u jeclaa inuu masaajidka yimaado, ilaan xanuunaa ka tan badan. xanuun xoogan ayaa haysta salawaatullaahi wasalaamuhu calayh.
rasuulku cabaar markuu meesha joogay salaadii cishana la gaaray wuxuu damcay inuu masaajidka aado rasuulku waa soo istaagay salawaatullaahi wasalaamuhu calayh wuxuu soo aaday dhinaca masaajidka tallaabooyin ayuu u soo qaaday ma soo gaarin albaabkiisa sara jooga ayuu ka dhacay salawaatullaahi wasalaamuhu calayh ka gadaa rasuulku waa miir daboolmay waa suuxay asagoo suuxsan ayuu cabaar suuxsanaa waxaa ku soo noqday miirkii indhaha ayuu soo kala qaaday haddana ma xasuusanin xanuunkii haayey ma xasuusanin wafaadka uu ku jiro ma xasuusanin sakaraadka saaran wuxuu yidhi caaishay ummadda ma tukadeed salaadii ma la tukaday ayuu dhahay salawaatullaahi wasalaamuhu calayh caaisha waxay tiri maya rasuulkii allow adaa lagu sugaa rasuulku waa soo baxay haddana wuxuu rabay inuu masaajidka yimaado in allaala intuusan soo gaarin ayuu haddana istaaga ka dhacay wuxuu la dhacdhacay salaada ilaahay inuu xaadiro inuu jameecada ka qayb galo inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala hortiisa istaago rasuulku mar allaala markuu dhacay haddana waa miir daboolmay cabaar asagoo jiifa oo miir daboolan ayuu soo kacay haddana ma xasuusanin dhibaatada iyo kurbada iyo sakaraadka iyo mashaakilka saaran rasuulka sala allahu calayhi wasalam balse wuxuu xasuustay ee uu ka naxay salaada inay ka tagto xaaladaasuu ka cabsaday ileen waa sahay ileen waa shayga iyo xiriirka alla loogu dhowaado rasuulku wuxuu yidhi caaishay dadkii ma tukadeen maya ayay tiri caaisha adigaa lagu suga rasuulki ilaahayow rasuulku wuxuu dhahay waayahee ii keena biyo ayuu rasuulku isticmaalay wuxuu damcay haddana inuu baxo oo masaajidka uu aado oo salaada uu ka qayb galo mar allaala markii meeshaa la gaaray oo xaaladiisa ay meeshaa maraysay ayaa waxaa dhacday haddana intuu cabaar damcay inuu socdo istaagiisa uu ka dhacay salawaatullaahi wasalaamuhu calayh rasuulku markuu intaa mar dhacay ayuu yidhi aniga maanta ma bixi karo eemaruu abaabakar falyusalli binnaas abuubakar amra asaga dadka ha dujiyo asaga salaada imaam ha u noqdo ayuu yidhi sala allahu calayhi wasalam asaga maanta hogaamiye ha noqdo dadka ha dujiyo dadka ha u tilmaamo salaada iyo xaaladda iyo sida markaa loo tugto abuubakar mar allaala markii sidaa la yidhi caaisha aad iyo aad ayay u diidaneed in aabbaheed uu maxalkaa istaago oo booskaa uu dul istaago markaasay tiri yaa rasuul allah abuubakar waa rajul raqiiq ah oo jilicsan oo qalbi jilcan qur'aanka markuu aqrinaayo ma awoodi karo inuu isceliyey waa oynaa maca daalika ummadda ma maqal siin kara qiraa'ada cumaraa ka xoog badan cumaraa ka kakan cumar ayaa ka adag ee cumar amar asaga dadka ha dujiyo sidaa ayay tiri caaisha rasuulku wuxuu yidhi war amra abuubakar asaga dadka ha dujiyo caaisha way soo baxday markaasay u timid xafsa oo ay arrinta ka dhaadhicisay ay tiri rasuulka u tag arrintaa u sheeg abuubakar in laga bedelo oo booskaa la istaajiyo oo la geeyo ninka la yidhaahdaa cumar radia allahu tacaala canhu sidaa darteed way isi soo raaceen rasuulka ayay u yimideen arrintii ayay u sheegeen rasuulku wuxuu yidhi hadalka badan iga dhaafa ee abuubakar amra asaga dadka ha dujiyo ayuu dhahay sala allahu calayhi wasalam sidaa darteed ayaa waxa dhacday maalintaa inuu abaabakar dadkii dujiyey oo salaadii asaga markaa uu u istaagay rasuulkana uu awoodi waayey inuu markaa soo baxo maalin ama laba maalin ka hor geerida nebiga sala allahu calayhi wasalam maalin sabti ah iyo maalintii axadda rasuulka wuxuu iska helay khafiif iyo waxoogaa fudayd ah xanuunkii ayaa waxoogaa ka dabcay xanuunkii haayey ayaa waxoogaa ka yaraaday sala allahu calayhi wasalam mar allaala markuu xanuunkaa ka yaraaday wuu soo baxay laba nin dhexdooda asagoo ku jira ayuu salaadii duhureed yimid abuubakar ayaa dadka dujinayey maalintaa dadka mar allaala markuu abuubakar arkay wuxuu gudagalay ama uu damcay inuu soo ta'ahuro uu gadaal u soo baxo laakiin rasuulkaa u ishaaray inuu meeshiisa joogo oo salaada uu taam yeelo rasuulka waxaa la fadhiisiyey abuubakar dhinaciisa abuubakar waa taagnaa asaga ayaa nebiga ayaa ummadda dujinaayey dhinaca abuubakar ayaa la fadhiisiyey abuubakarna codka dheer ayuu gaarsiinayey ilaa nebigu waa xanuunsan yahay codkiisa ma gaarsiin karo dadka oo dhan
أبو بكر وحو كديناي صلاة النبي ددكنا وحي كديناي صلاة أبو بكر رضي الله تعالى عنه maalintii ugu dambaysay ee geeridiisii ama aakhir yowm oo min xayaatihi salaadii fajr ayuu rasuulku dujiyey maalin isniin ayadoo ay tahay mar allaala markii qoraxdu ay soo kor noqotay oo waqti duxaa la gaaray rasuulku wuxuu u wacay faadima waa gabadhiisa markaasuu shay ku siriyaystay waa oysay faadima radiallahu tacaala canha haddana wax buu dhigta ugu sheegay ka gadaal waa qososhay haddana waa la su'aalay isla markii caaisha ayaa weydiisay faaduma weydiiday inay sheegto oo ay tiri aniga ma ihi mid faafinaysa oo bannaanka dhigaysa sirta nebiga salawaatullaahi wasalaamuhu calayh laakiin markuu dhintay ka gadaal ayay caaisha ka harin oo ay weydiisay oo ay tiri ilaahay ayaan kugu dhaariyey nebiga muxuu kuu sheegay faadima waxay tiri markii koowaad ee aan ooyey wuxuu rasuulku ii sheegay xanuunkan inuusan ka kaxaynin inuu ku dhimanaayo oo qabri uu u socdo gabadhaydiyey dadaal ayuu yidhi diinta alla ku soco qiyaama haddii la taga aabbahay ayaa nebi ahaa ma jirto war diinta alle ku dadaal oo daacada rabbi ku soco war amarka ilaahay qaadoo xumaanta ka sariigo war waxaad noqotaa faadime mid diinta alla ku socota war waxaad noqotaa mid sunnada nebiga noolaysa war waxaad noqotaa mid ilaahay jecel kitaabkiisa ku camalfasho noqo aniga waa socdaa waana dhiman rabaa ayuu ii yidhi markaasaan ooyey tiri faadima radia allahu tacaala canha markii labaad rasuulku wuxuu ii sheegay ayay tiri inaan ahay sayidada naagaha ama naagaha dumarka jannada ku jira sayidadooda riwaayad kale waxay ku tilmaantay qofka ugu horeeya oo ka daba tegaya ehelkiisa inaan aniga ahay ayuu ii sheegay markaas ayaan qoslay ayay tiri faadima radia allahu tacaala canha haddaba xaaladdu markay meeshaa maraysay rasuulku xanuunka uu ku sii batay oo xanuunka ku sii ziyaaday faadima aad iyo aad ayay u qaylisay faadima kurbadii nebiga haysay ayay u adkaysan weysay waxay tiri waad raba abataa aabbahay la kurbeeyey aabbahay xanuun iyo kurba ayaa haysa sakaraad dhibaato badan ayaa saaran rasuulku wuxuu yidhi laysa calaa abiiki bacda alyawma kurba maalintaa ama maanta wixii ka dambeeya faadime aabbahaa korkiisa kurba ma ahaanayso aabbahaa maanta wixii ka dambeeya ma kurboonaayo waa iska dhimanaa ilaahayaan u tegaa subxaana wa tacaala waxaan ka tegaa adduunkan dhibka iyo mashaakilka badan waxaan aadaa raxmadda ilaah subxaana wa tacaala faadime wax dhibaato ayay ku gelin waxba kurbaa korkayga ma ahaanin ilaahay xaggiisaan aadi doonaa subxaanahu wa tacaala waxoogaa yar oo khafiifa ayuu nebigu helay masaajidka ayuu soo aaday salawaatullaahi wasalaamuhu calayh wax yar oo khafiifa markaan aadna shay baarkaan aadna markaan helno wax yaroo xanuun ah ama khafiif yar aan helno meelaha cudurka lagu baaraan aadaynaa cisbitaaladaan aadaynaa rasuulka masaajidkuu soo aadaa fiiri salawaatullaahi wasalaamuhu calayh waa beydkii ilaahay waa meeshii rabbi naxariistiisa ku soo degaysay buqca alla ama buqca adduunka ku taala waa midda ugu qiimaha badan goob adduunka ka dhisan waa meesha ugu sharafta badan meesha aan ka aadna dagaha kutubaha fiiriya ayuu nebigu masaajidka ka imaanaa salawaatullaahi wasalaamuhu calayh rasuulku wuxuu soo fadhiistay mimbarka mar allaala markuu mimbarka soo koray ayuu ummadda wacdiyey xaqa ayuu u sheegay diinta ilaahay ayuu xasuusiyey rasuulku mar allaala markuu ummadda wacdiyey oo meesha uu taagan yahay ayuu yidhi addoommada alla ka mid ah ayaa khiyaar la siiyey waxaa la khiyaar geliyey waxyaabaha adduunka yaala in la siiyo ka gadaal markuu dhintana janno la siiyo iyo inuu iska dhinto oo shayga ilaah agtiisa yaala uu doorto addoonkii wuxuu doortay shayga alla agtiisa yaala markuu rasuulku sidaa yidhi abi saciidin alqudriy wuxuu yidhi abuubakar waa ooyey wuxuu yidhi aabbahay iyo hooyaday ayaan kugu furanaa rasuulkii ilaahayow ka gadaal abuubakar waa ooyey ooyin aad iyo aad lala yaabo
dadku waxay dheen odaygan muxuu la oynaa haddii addoommada ka mida ilaahay uu khiyaar geliyey shayga agtiisa yaala inuu doortay iyo adduun ka gadaalna uu doortay shayga alla agtiisa yaala waxaas maa wax loo ooya ah odaygan muxuu la oynayaa abuubakar wuxuu ahaa asxaabta ninka ugu faqiihsan ugu waxgaradsan ugu caaqil